Hello, soo dhawaada ardayda sharafta leh marwo iyo mudanooyin gabdhiyo wiilal in waa kala jarkii casharkankii ka horreeyay waxaa isku darka casharadii u horreeyay waxaan ku baranay tirooyinka sida loo akhriyo kuwan ku xiga waxaan baranaynaa afarta operation isku darkii waxaan filayaa in aad fahamtay kana shaqaysay wax badan casharka exercisada ku jira u dambeeyo dhan ka shaqee website-ka ku jira markaad ka shaqaysid waxaad haddaada la socon please sheeg raadi dib ugu noqo hadda waa kala goyntaan baranaynaa haddana isku dhufashada isku qaybinta kadib baan beri aljabraa u gudbaynaa afar taxriif waa inaan ku nahay kala goynta waaya subtraction ereyadii waan baranaynaa haddana ereyga minus ama ka jar iyo ereyadan waa isku micno waa inaad taqaanaa minus subtraction subtracted past present mid waa verbkii oo ficilkii mid waa nounkii mid waa past less than wax laga yareeyay reduced baa laga yareeyay take away laga qaaday giddi waxay sheegayaan kala goyn bay sheegayaan hadhow problems kuna ka shaqayn doono baynu u baahanaynaa sii baro equal tana horaan u soo marnay cashirka horreeyay equal was leegihiin leekaansho same as like or same okay ayn aragno sideebaa wax loo kala gooyaa hota waxaa loo kala gooyaa sahal waxaad ka samaysaa dhinaca midigta xisaabta ka samaysaa markasta xisaabta kala gooyinta isku darka midigta ka samaysaa haddaad 36 ku raa 12 ka goo 36 markaa qorto 12 labada waxaad ku samaysaa tirada geeska ee 6 ah saasaad ku wadaysaa borrow ama regroup when needed haddaad u baahatid soo amaaso hadday ku deeq weyd maxaan ka wadnaa hadda tani u horreeya aan eegno tan u horreeya 36 lixda laba ka goo waa 4 ama miyaan u baahanay maya 6 laba way ka goodaa 3 mid ka goo waa 2 ama uma baahnin tan ku xigta aan eegno waxay tan ku xigta 35 laga gooyay 19 waxaan ka bilaabaynaa geeska 5 9 ka goo kama go'do dadka qaar way kala rogaan maskaxdooda waxay dhahaan 5 9 ka goosay doonaan bayaan 4 bay iska dhahayaan waa khalad $5 adoo haysta baa waxaan ku iibxaan war waaba Zahroy ama Safiyo ama Cali si $9 si jawaabtaadu waa ma haysto ima siin kadib 5 9 ka goosaas ee lamid marka waad soo amaasanaysaa dariska u tagaysaa saddexaan warniyahow waxa u baahnay ina xaymaysid $9 baa laga baahan yahay waaya 10 iga qaadaanaa 30 xabadii baad la boodaysaa waxay halkaa noqotay 15 xagga la tagtay 15 marka 9 hadii laga gooyo waa qofka waad siin ka dhaa 9 ka 6 baa ku soo haraysa 15 9 ka waxa soo haray 6 halkan maxaan ku waaray markii 3 bay la ku hayday mid baa laga qaatay 2 ku waartay labadiiba mid ka goynaysaa waa soo dayso sidaas laga wada example kala aragno 72 waxna ka jaraynaa 24 bal 4 ka goo kama go'do waayo dee $2 nin haysto meel la fadhiyo waxaad leedahay 4 keen ma waa haysto darisku aade toddobeelay war xabadii soo dayminiyo bal ana 60 kala 6 la haray xabadii qaad waa 7 buu ahaa mugta 6 buu la haray 10 buu ku sii 12 baa waxa ka goynaysaa 4 maxaa soo haraysa 8 halkan 6 laba ka goo maxaa soo haraysa 4 waaye ku noqnoqo sheekadan haddee faa'iido ugu weyn ee kala goysmada waxaa weeye ansarka waa la jeekarayaa runtii ishu ardaydu saas ishu la sii raacaan markay ka shaqeeyaan bal in ansarku sax tahay ishay sii raacaan ma aha dad sidii qof dhaga xiran oo kale markay ansarka samaynayaan ishay la raacsan maxaan ka wadaa 72 waxaan ka goynaa 24 labada Afrika oo go'do 12 baan ka dhiganay 4 8 bay noqotay 7 waxaan ka goynay ma hubo laakiin 6 bay ahayd laba ka goynaa 4 ma saxba sida loo hubiyo waa sidan insha Allah la raaco labada line ee hooseeya line-ka 24 qoran tahay iyo line-ka jawaabta 48 qoran tahay la isku daraa waxaa la fiiriyaa inay kan ka koreyso soo saarayso maxaan ka wadaa 48 u hooseysay baa ku daraysaa halkan eeg baa ku daraysaa 24 ma ku dadhay waxay ku siinaysaa 72 hadday 72 noqotay waa la mid tiradan waa saxsan tahay
hadday ku siin weydo 72 saad wax u kala goyso waa khaldanta ood ku noqonaysaa warkaas macadoo hey waa ku kaasaa exercise oo dhan baa ka shaqaynaysa casharka la socda waxaan filayaa inaa expert ku noqotid halkaas ayaan kugu daynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi